السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعي وانا سري يوسف ورزالة وحنا هاي مامولكا قف كميد فاوندركي سو ماركت فكرة سو ماركت وحيقول دالتي ودنك waxaan joogaa 2 sano waxaan ka imi qurbaha wadanka Mareykanka ka imi markii aan arkay dhibaatada dumarka Soomaaliyeed ay kala kulmaan xagga adeega maadaama ay haysteen nolol easy ah oo isku saaran oo ay la jaan qaadi karaan baa waxaan ku fakiray in aan u sameeyo adeegyo fudud oo noloshoodii horena u saamaxaysa duruufaha ay ku jiraan ka bixinaysa runtii waa meel aad iyo aad u qurux badan waana rajaynaynaa qofka muslimka ana tijaarada waa lagu dhiirigeliyaa tijaarada xalaasha ah waa wax aad iyo aad u wanaagsan siirada markaad aqrido dadka waxa weeyaan dagaal baa lagu qaaday muslimiinta markaas dhaqaalihii baa laga fogeeyay markaas qofka muslimka ah inuu dhaqaale yeeshay waa laga dagaalamaa laakiin haddaan siirada si dhab ah ugu noqono saxaabada Abu Bakar wa Umar wa Uthman dadka ugu xoolo badan baa ahayn waqtiga markaa la joogay bal nabiga ayaa taajir ahaa oo tijaarisan jiray bal nabiga xaaskiisa oo Khadiija ayaa waxa isku barteen tijaaro ahayd marka tijaarada xalaasha ah aakharana waa lagu gaaraa adduunyadana sharaf waa lagu gaaraa cizi iyo sharaf wassalaamu alaykum warahmatullah بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان والسلام يا كسو قيب قلياش ما أنت كسو قيب قلي إبا فركة أما دا فركة تكان كعصوبة سومالي دولة دهي وانو هم بليين يا شقالها يا مامولكا تدك نوفري ما أنت ميشا قروح دبادن اللي سويمي وحنا يا هالكا كسي وضع إله هدي بركة كنحسدينا وبالله التوفيق سو ماركت waxa ay yaala adeegyo kala duwan ayaan ku bixinaa waxyaabaha wadanka ay imid aan kala kulmay waxa kamid ahaa marka aan wadanka imid ciyaalkeena qurba joogta ah hadda for example ciyaalkayga muddo way ka go'een hilibka lo'da ah laana lo'di aan soo iibsan jirnay ma ahayn lo quality leh Soomaalidu badanka qofku ugu horeey meesha ku tilmaamay aadaysa taasa waxay yadan igu dhalisay in aan business kan create gareeyo si aan serviceyo ciyaalada iyo familada u qidmeeya oo noloshooda la jaan qaadi kara ay u helaan hilibada aan gadno waxa kamid ah hilibka lo'da ah waa hilib quality-giisu uu sareeyo oo quality-giisu aad u sareeyo oo qofkii cuna oo customer noo yimaado ay nagu soo noqdaan waxyaabaha kale oo anaga qaaska nagu ah hadaan nahay soo market waxa kamid ah hilibka ariga turkidani waxay cunaan oo dhaqan u ah hilibka idaha ah Soomaaliduna ma jecel hilibka idaha sida daraadeed waxaanu keenay fikir ah in wixii dadkayagu ay jeclaayeen maadaama dadkayagu u adeegayno inaan ugu soo kordhino oo ah hilibkii ariga ahaa waa hilib dayla ah waa hilib fresh ah oo maalin walba la qalo waxaan kaloo keenay waa chickenka ciyaalku jeclaayeen beerarkii oo kala duwan beerkii ariga ahaa beerkii lo'da ahaa keliyihii waxa soo dhan waan keenaa waxaan kaloo businesskayga ku jira waa baharaadka kala duwan for example digirta Soomaalidu ay cunto wadanka Turkiga laga helo meel yar baa lagu helaa waan ku soo kordhinay businesska xawaajidii kala duwanaa oo haday hilba ahaan lahayd haday ahaan lahayd bariisada kuwi lagu darsan lahaa waxa jirta in aan wadankan laga helin baastada fiinada ah baastada fiinada ah Soomaalidu aad bay u cunaan waa baastada kaliya ay cunaan warshadahan direct u tagnay aan contract la soo galnay si aan dadkeena ugu qidmeeno waxa kale wadankan Turkida ay cunin ay kamid tahay bariiska basmatiga ah markii aan wadankan dhibaato badan ay kala kulmay bariiska basmatiga ah bariiska Turkida cunto way ka duwan tahay kaayagi marka iyada waxaanu sameynay in aan bariiski basmatiga oo kala duwan aan dadkii u keeno si aan ugu qidmeeno dadkeeni gacmo furan ayaan ku soo dhaweynayna waxyaabaha kale aan ku soo kordhino businesska waxa kamid ah in aan delivery aan sameeyno maadaama xaafadii ay kala fog yihiin inay hooyadu ay timaado waxa naga soo horjeeda meelaha walaadaha aha oo lacagaha laga wada qaadanayay maamadu markay lacagta soo qaadato wayna soo maraysaa kaliya wax allaale waxay guriga uga baahneed sheyga ugu yar ilaa sheyga ugu sareeya way naga helaysaa haday tahay clinic haday tahay caanayaasho kala duwan haday tahay cuntadii qalneed oo kala duwaneed hilbihiisa u soo sheego kale